dhibaatada maanta jirta ama dadka lacagta loo ururinayo waa la qabaa walaalkay Sheekh Ciise haddii qof walba uu isi saaro lacag $530 10,000 oo qof baa lacagta bixin karaya waa lacag marka dhinaca laga eego marka sida loo kala qaybsado aad iyo aad u yar ana waxaan qabaa xitaa idan Togo Jaale inay ku filan tahay inay inta bixiso ganacsiga Togo Jaale qiyaasahan waxa la oran karaa maanta magaalada Togo Jaale marka dhinaca la isku diro in $1 bilyan ay gaarayso $1 bilyan $5 milyan 300 markay noqoto waa lacag aad u yar dhamaantiin markaa waynu caawinaa gudaha iyo dabadba oo muhiimaduna waliba tahay ganacsatada Togo Jaale joogta gudida waxaan kula talin lahaa ganacsatada lacagta ururinaysa in ganacsatada lacag bixisay calaamad albaabkooda ku dhajiso si kii aan bixin cid waliba ay u ogaato maanta maaha maalintii bakhaylku dhuuman jiray maanta waa maalintii la isqaban jiray la iscaawin jiray barito mawgid waxa dhacaya sida walaaladeen halkan maanta joogay ka hadlay uu khasaaro soo gaaray mawgid barito wax kugu dhacaya habeenka waan xusuustaa walaalkii Cabdiraxmaan bay la soo hadlay wuxuu igu yiri Cabdirashiid oo dabku meel xun buu maraya waa laga yaabaa annaga inuu soo gaaro waan ishayn kari waayay cid walba nabrooda hayban la xiriiray ilaa madaxweynaha dowladda Soomaaliyeedka Ethiopia aan ku yiri dabkani waa dab u baahan caawimo in degdeg loo caawiyo qayb ay ka qaateen qaar badan noloshoodii ay ku way gaadheen ama Hargeysa ka yimaadeen ama Boorama ka yimaadeen ama Gabil ka yimaadeen kuwaana way marba xusuusanaa ciidamada dabka ganacsatada wax badan oo ay dabka kaga hortagi karto ayay qaban kartaa wax badan bay ka wada shaqeyn karaan tartanku waa xalaal laakiin tartanka mararka qaarkood gacmahooda isqabsada ayaa ka muhiimsan dabku adduunka oo dhan ka dhaca waanu dhici doonaa laakiin in cashar laga qaataa waxay imaanaga dahabshiilhaan maanta maxaan xafladan kaga qayb qaadanaynaa horta aad baan ugu faraxsanahay dawladda hoose inay lacag wanaagsan bixisay waxaan isla hawaaba ka sii badinaysaa dooraha soo yara dhuumanay waxaan isla iska yara suginta la wada bixinayo laakiin maadaama dawladda hoose inay 600 bixisay qayb intaasana bixinaa $300,000 dhammaan cidii akawnada lacagta ku shubaysa gudaha dabadbana wax firiya oo ka qaadayna qof walbana waan ka codsanayaa kula talinaya qofkeeda awoodid caawi oo ganacsatada Togo Jaale ay qaybta weyn ka qaadanaysa